السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال dhegeystayaal idin ahaantiin waxaan idin leeyahay maalinka hadin wacnaado cid maalin u tahay cid haween u tahayna sidoo kale habeenka hadin wacnaado maantana waxaan ka hadlaynaa George Mendel ama Georg Mendel waa nin markaasi biology ama maadada biology-ga ama cilmiga biology-ga ka taagan meel markaasi maqam sare ah George Mendel waxaa loo yaqaanaa aabihii markaasi hidisidaha waan arkaynaa qisadiisa oo kooban ayaan halkaan kaga hadli doonaa insha Allah ee markaasi ku soo dhawaada George Mendel waxa uu dhashay Janaayo 1884 wuxuu ahaa xisaabiye biologist Mendel waxa uu ka dhashay qoys ku hadla afka Jarmalka oo ku nool qaybta Silesian ee boqortooyada Austria waxa loo aqoonsaday inuu yahay aasaasihii cilmiga casriga ee genetics inkastoo beeralaydu ay u yaqaaneen in isutaga xoolaha iyo dhirta ay doorbidi karaan sifooyin la jecel yahay tijaabooyinkii geedka digirta ee Mendel ee la sameeyay intii u dhaxaysay sanadadii 1856 iyo 1863 ayaa aasaasay qaar badan oo ka mid ah xeerarka dhaxalka oo hadda loo tixraaco sharciyada Mendel waxa uu ka shaqeeyay 7 sifo oo dhirta ah oo kala ahaa dhererka dhirta qaabka dhirta midabka dhirta qaabka iniinta booska dhirta ubaxa dhirta iyo midabka dhirta isagoo tusaale u soo qaatay midabka iniinta Mendel waxa uu muujiyay in marka digirta huruud iyo digir cagaaran la isu beero ay caruurtoodu waxay had iyo jeer soo saari jireen iniin huruud ah si kastaba ha ahaatee jiilka soo socda digir cagaaran ayaa dib u soo muuqday saamigal ah hal cagaar ah iyo 3 jaalo ah si loo sharaxo dhacdadan Mendel waxa uu curiyay erayada dib u dhaca iyo ka weyn isaga oo tixraaca sifooyinka qaarkood sifada cagaarka oo u muuqatay meesha ka baxday ahayna jiilka ugu horeeyay jaalaha ayaana ka sareeya waxa uuna daabacay wargeyskii markaasi sanadkii markuu ahaa 1866 isagoo ku muujinaya ficladan waxyaabaha aan la akhrin karin ee markaasi hadda loo yaqaano hidaha waxyaabaha aan la arki karin ee hadda loo yaqaano hidiside ama hidowadaha si loo saadaaliyo go'aaminta sifooyinka noolaha iyadoo la saadaalinayo go'aaminta sifooyinka nafleyda muhiimad qoto dheer ee shaqada Mendel lama ogaan muhiimada qotada dheer ee shaqada Mendel lama ogaan ama lama aqoonsan ilaa bilowgii qarnigii 20aad in ka badan 30 sano kadib iyadoo dib loo helay sharciyadiisii waxay si madax banaaniya u sharxayeen ama u qeexayeen dhowr ka mid ah natiijooyinkii tijaabada ee uu sameeyay Mendel waa inaga intaa markaasi George Mendel oo loo yaqaanay aabihii hidisidaha ama aabihii genetica waxaan halkaasi ku soo koobayaa qisadii koobneed ee markaasi aan kaga hadlaynay ninkaasi waxaan idin leeyahay qisadaasi oo dhameystiran haddii aad u baahan tahay waxaad ka heli kartaan qaybaha kala duwan ee markaasi barta internetka sidoo kale waxaad markaasi cashirkaasi aad ka heli kartaan buugga biology-ga ee markaasi chapter 5 ee fasalka form 4ka ee manhajka cusub ee dawladda intaan tan iyo kulanti dambaan ku kulmi doono waxaan ahay الأستاذ دكتور مهندس قراء عاقل يعقوب فيصل آدم يعقو يري وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.